dagaalkan u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa maanta gelinka hore ka qarxay deegaano u dhaxeeya Godqaboob iyo Buucme waxaana dagaalku ka bilaabmay kadib markii jamhadda xoreynta iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo garabsanaya maamulka Puntland ay weerar ku soo qaadeen waxaana dagaalkan la sheegay inaanay wax khasaare ay ka dhalan isku dayo aan la sameeyay saraakiisha kala hogaaminaya labada dhinac ayaa waxaa noo suurta gashay inaanu khadka telefoonka ku helno sarkaal ka tirsan jamhadda xoreynta iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo garabsanaya maamulka Puntland waxaana Farxaan Maxashwaan nooga waramay sidii dagaalku ku bilaabmay halka uu ka bilaabmay waxaanu sheegay jamhadda xoreynta iyo mideynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo maamulka Puntland oo garabsanaya ay la wareegi doonaan gobolka Sool intiisa ku jirta gacanta maamulka Soomaaliland bismillaahi rahmaani rahiim salaam ya qulubna saxaafada dagaalku wuxuu dhacay dagaalka anaga qaadnay saaka waxaanu ku qaadnay firismada cadawga hoosta deegaanada Tuqran anaga sanada xoreynta deegaanada Xaaflo shaqada Puntlandna waa naga gashay anaga Puntland saaxiibana xiriir baa naga dhaxeeyay gacasaab dagaalka loo wada galay anaga hogaamiyay jilada hogaamiyay waxaanu ku qaadnay firismada cadawga haysto Soomaalidiinka deegaanada Tuqran خسارة ولا يبيسي وحنا نقول خسارة صار عسكري مجددة عدنا وصرف لنا على الضواق وصارنا يا ونقول هذا يا دزيرها لو بحثنا كستشوران دنيا الجد يبي يرجعون دنيا كات كوكا على الشغل دي كذا كواسطة أول كلام جواب تعالوا خشوا الرئي كان هذا حيل حلو الشغل دي كان الله تقال أنا كانت Soomaaliyeed iyo maamul Soomaaliyeed gacansaar baana laga dhaxeeyay marka uu dagaalamay anaga sanada xoreynta deegaanada Xaaflo galay dagaalka hogaaminayay geesta kale isku dayo aan la sameynay saraakiisha ciidamada Soomaaliland ayaa noo suurtagelin inay nooga waramaan dagaalkaasi saaka ka qarxay deegaanadaasi dagaalkan ayaa ku soo beegmay xilli dhawaan ciidamada maamulka Soomaaliland ay la wareegeen deegaanka Tooqar oo xarun dhaqaale u ahayd maamulka Puntland waxaana guud ahaan gobolka Sool laga dareemayaa saansan coladeed u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga SBS la socon